السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن خيارتا أهوذا نقل حيرتاي كسو دوادا channel كيغي شاعية ونشو هدي آد فالو سبسكرايب منا آدان يقوهن إن شاء الله وحن كاعد صنايا إن آد فالو إسور دحضو أو آد سبسكرايب إسور دحضو أو آد هلكن صاحبي ولا نقطة إن شاء الله جروب 5 كا وحير أبدي دا صواب بحي ولكن آد مهمة أو آد مهمة والله آد بي مهمة تاهنا فهنتان halkan haddii inta aa fahantid wax walba easy ay noqonayaan group 5ka waxa maaragtay cad in wax walba ay easy ka dhigayaan si loo fahmana ay easy ka dhigayaan marka waxyaabaha hadda cusub aan idin la share gareynayo waxa kamid ah number 1 in lacagta group 5ka la kordhiyay oo lacag lagu daray group 5ka lacagtiisa markii hore qofkii laga doonayay waxay ahayd $2300 iyo $75 ayay ahayd laakiin hadda waxa laga dhigay $2425 ayaa laga dhigay waa la kordhiyay intaas inaan fahanno waa muhiim teeda kale inaad codsato ama codsi aad samayso ama application inaad samayso waxaad u baahan tahay inaad aruuriso lacagta hadda aynu soo sheegnay oo dhan $2425 markaasna aad cadayso dawladda u cadayso inaad hayso 60% lacagta hadda aynu ka hadlaynay oo ah $2425 oo u dhiganta 60% waxay u dhigantaa $1455 ayay u dhigantaa intaasi at least ugu yaraan intaasi waa gacanta aad ku haysid ayaa laga doonaa waajib lagaaga dhigay intaasi inaad gacanta ku haysid waa waajib okay number kale ayaan u gudbaynaa sababta aan ku sheego horta loo kordhiyay maciishada iyo nolosha Mareykanka ayaa qaali sii noqonaysa saas awgeed physical yearka 2024 lacagtaas lagu daray oo waxa laga dhigay $2425 ayaa laga dhigay cadeymaha la iska rabo waxa kamid ah inaad marka hore furto online account oo ah GoFundMe inaad furatid ayaa laga doonayaa GoFundMe awal dadka waxay u haysteen inaysan waajib ahayn laakiin hadda waxa muuqata inay waajib tahay oo la iska rabo so GoFundMe ayaa laga doonayaa sidoo kale waxa laga doonayaa GoFundMe-ga aad sameynaysid iyo group 5ka magaciisa aad u bixisay iyo groupkan iyo GoFundMe inay isla haadaan group 5ka magaca aad u bixisay iyo GoFundMe-ga waa inay isku group noqdaan ama isku magac noqdaan hal magac tusaale ahaan haddii group 5ka la dhaho group 5kaagii aad abuuratay haddii la dhaho X la dhaho GoFundMe-gana waa inaad X u bixisid ayaa laga doonayaa waajib weeyaan waxyaabaha la iska raba ayay kamid tahay sidoo kale waxa la iska rabaa cadeen ah inaad samaysay GoFund isla markaana magacaasi ku qoran inaad haysatid ayaa laga doonayaa screenshot ahaan aad u soo dirto ayaa laga doonayaa iyo sidoo kale magaca inay isleeyihiin groupkaagii iyo GoFundMe-gii online-ka ahaad abuurtay magacyadoodii inay isleeyihiin cadeymo ah ayaa sidoo kale laga doonayaa taa halkaas aan uga gudbo I hope in aad loo fahmay sidoo kale waxa laga doonayaa cadeyn ah inaad haysato lacag dhan $455 oo aad ugu tala gashay qofkaasi ugu yaraan ka badan waad show gareyn kartaa waad tusi kartaa wax ka badan laakiin meesha ugu yar waa lacagtaasi hadda aynu ka hadlayno insha Allah okay waxaan u gudbayaa qaybta kale nooca bangiga aad u baahan tahay iyo statementyada laga doonayo ayaan halkan kugula wadaagi doonaa waxayna kamid yihiin waxyaabaha update-ka ah ay haatan ku soo dareen dadka ugu fududeynayaan in aad loo fahmo waxayna kamid tahay bangiyada waxyaabaha dadka ay aadka isku weydiinayeen oo ay dhahayeen ma bangi account baan naga rabaa maxaan sameynaa sidee wax yeelna ayay dhihi jireen laakiin jawaabtiina hadda ay soo baxday waxa laga doonayaa in bangi aad samaysato bangiga magaciisa ayaa laga doonayaa bangi kale oo adiga aad leedahay waad isticmaali kartaa laakiin sharuuda ku xiran waan u iman doonaa laakiin waxa muhiim ah in groupkaagii bangi aad u samaysato aad ugu tala gasho ayaa aad muhiim u ah run ahaantii sida hadda muuqata okay
taa waa isla fahnay ayaan filayaa. sidoo kale waxaa lagaa doonayaa in aad bangiga aad sameynaysid magaciisa aad ka dhigto groupka magaciisa. haddaa waxaan dhahnay groupkaagii haddii x la dhahayo, GoFundkana waxaad ka dhigaysaa group x. haddana accountka bangiga aad furaysid waxaad ka dhigaysaa account bangi oo la yidhaahdo x in la dhaho ayaa lagaa doonaya. haddii marka aad doonaysid in magacaagii aad ku furato xasan cali inaad ku furato, haddaad u baahan tahay waad ku furan kartaa, laakiin waxaa lagu dhahay naanaysta nicknameka ama naanaysta bangiga waa inuu uu ahaadaa magaca groupkaagii. intaa aad waan u fahmnaan filayaa. intaasi ayaa la iska rabaa. nooca bangi accountiga aan la ogolayn marka intaasi wixii la ogolaa weeyaan. maxaan la ogoleen? tan ayaan haddana kaga hadli doonaa. waxyaabaha aan la ogoleen waxaa ka mid ah in bangigaaga gaarka ah aad isticmaasho, lama ogola. haddii aad rabtana inaad isticmaashid sidii haddaa aan kuu soo sheegay, waa inaad samaysaa oo bangi nicknamekaagii waa inaad ka dhigto groupka magaciisa inaad ka dhigtid. laakiin bangiga nooca adiga aad leedahay lama ogola inaad isticmaasho. sidoo kale waxaan la ogolayn waxay tahay in bangi accountkaagii aad u isticmaalayso waxyaabo kale, lama ogola. tusaale ahaan bangi ayaad usoo samaysay groupka waxaa la dhahaa x, bangigaad soo samaysayna xa la dhahaa, then wax kale ayaad u isticmaalaysaa lacagtii, lama ogola, mamnuuc waaye. iyadana wax la ogol yahay ma ahan. haddii deeq lagu siiyo oo lacag donation a hesho organizationo iyo non profit iyo maaragtay faithka iyo masaajidada ama kaniisadaha aad wax ka soo hesho, waxaa lagaa doonayaa warqad caddaynaysa inaad lacag ka soo heshay ayagii oo halkaasi hawsha aad ku wadayso. updateyadaasi ayaa soo baxay oo laakiin aad muhiim u ah oo dad badan ay ku wareersanayeen, waana waxay ka mid tahay tallaabooyinka ugu horeeya in la qaado si dadka ay dadkoodii ugu dacwoodaan. waa walaalkiina shaaciyaday leh follow, subscribe, muuqaalkaana dad badan la sii shargaraysa uga faa'iidaystaan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.